وادي سلام صاحب يال waxaa halkan kasii wada doonaa taxniin oo socday magaciisa Steel Shining taxnaa waxaa ka sameeyay laba qayb hore haddii aad soo daano janaal dib ugu laabay soo daawo inta muuqaal guda gelin wax ku xasuusinaya in muuqaalka like sarti saaxiib naga cusub haddii aad tahay subscribe soo dhig janaalka gambaleelkana furo qaybtana qaybtiisii saddexaad maalmo kadib waxaa arkaynaa uuna dharkeed xiranayso kadib markay heshay shaqada tababarka ay rabtay aabeedii qoftiisa waxay ku dhahaysaa shaqada aan rabay ayaan helay marka meesha shaqada aynu wareegsanaya haddii ay haysan boorso kale weyn ii keena aayadan waxay ku dhahaysaa boorsada ku keena noocee rabtaa uuna waxay ku dhahaysaa midda ugu weyn ay hays ii keen aabeedna kaliya uu fiirinayay asagoo la yaaban gabadhiisa kadib uu ka tagaya kadib una eedadeeda waxay u keenaysaa boorso aad u weyn subaxdii marka la gaaro aabeeda quraacda ay jecleed ayuu karinayaa aabeed waxay ku dhahaysaa bixitaankayma ku farxin miya aabeed waxay ku dhahaya gorome sidaan dhaqsiyaha u badan ugu weynaatay wax fiican kuma siinin noloshaada una waxay ku dhahaysaa wax badan oo jecelahay ayaa i siisay hadda caafimaad qabtaa markaas ayaan go'aansaday iskuulka iyo jaamacadina aado haddana jaamacaddii ma jecelaysanin kadib waxaa qaada waddo kale oo ka duwan tii hore taasna adiga kaaga mahadcelinaya aabeed waxay ku dhahaya aniga waa fiicana noloshaada raaco waxaa jeceshahayna samayso noloshaadan ugu noolow sida adigoo safar ku jira oo kale una waxay ku dhahaysaa sidaas ayaan samaynaya waqtiga isiisay lagama yaab inaa lumiyo oo wax maalaayacni ah aan ku sameeyo kadib uuna qolkeeda ay timid ayadoo boorsadii diyaarsanayso waxa uu imaanayso qoftii eedadeeda ahayd waxay ku dhahaysaa aabahada uma sheegin kii ay isjecleedeen uuna waxay ku dhahaysaa u sheeg haddaa rabtid wuu og yahay inaa wiilkaas aan isku dhownahay eedadeeda ayadoo sii bixi rabto uuna waxay ku dhahaysaa aabeega ka tegin asaga keligiis weliga hadda xaalkiisa waa iska fiican yahay ayadan waxay ku dhahaysaa weligay waan joogi doonaa garabkiisa kadib uun hoteelka ayay imaanaysaa siyon ayaa qolkeeda cusub geynayo uuna markay aragto qolkeeda aad ayay u farxaysaa waxayna dhiganaysaa alaabta ay wadatay maalmo kadib tahay baska tuulada ayuu soo raacay wuxuuna masjid u dirayaa uuna wuxuuna ku dhahayaa tuulada ayaa soo gaari rabaa 8 sac galabnimo goormee kulannaa labadeena markii uu tuulada yimaado awoowiis wuxuu ku dhahayaa ayaga inay dhakhtarka la kulantaa balanta dhakhtarka ayaan u qabanayaa ee adiga geey awoowiis wuxuu ku dhahayaa ayada war ma maqlayso way diidi doontaa kadib wuxuu sheegayaa inuu ka cabsi qabo inay dunto bakhaarkan yar dabeelaha roobka xooggan wato ee soo socda dartiisa wixii alwaax meeshan ku kadsan way qoyi doonaan haddana meeshan yar dhacdhac yar ayaa soo galo kadib taay wuxuu tagayaa midko ay saaxiiba yihiin oo meel yar alwaaxda lagu sameeyo leh wuxuuna ku dhahayaa awoowahayga wuxuu ka cabsi qabaa inuu ka qoyo qoryaha stoorka ugu jiro hadduu yimaado roob xooggan marka waxaa u baahanahay waxa iskaaga difaacno oo aan ku daboolno meelaha roobka ka soo galayaan saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa taas dhib ma lahan beri ayaan kuu diyaarin doonaa waxa iskaaga dabooshiin meelay wax ka soo galayaan taay wuxuu ku dhahayaa meeshas xaalkeeda iska roon tahay laakiin awoowahayga walwal ula seexan waaye isaga wuxuu dhahayaa taas muhiim maahan marka waa inaad dhoqsataa oo aadaa militariga oo aad soo qaadataa tababarka marka aadid militariga waxaa laga yaabaa walaalkaada inuu kali noqdo maalmaha ugu horeeyo waa inay soo diiwaan gelisaa markuu kasoo tagay saaxiibkiisa kadib wuxuu fiirinayaa uuna fariinta u diray ayadana weli ma fiirin uuna markay shaqadeeda soo dhammaysatay ayadoo meel iska fadhiso ayay fiirinaysaa taleefanka waxayna arkaysaa fariintii uu soo qoray taay ayadoo waxay ku jawaabtala ayuu soo wacayaa taay wuxuu ku dhahayaa aniga xaafadaan jooga goormee shaqada kuu soo dhammaanaysaa uuna waxay ku dhahaysaa aniga waxaan joogaa guriga shaqaalaha hoteelka ay seexdaan taay wuxuu ku dhahayaa oo meeshaa sheegaysay ayaa u guurtay miya uuna waxay ku dhahaysaa inaan kuu sheega waan rabay inta usoo wareegsanin mardhown tababaradii shaqada ayaan qaadan doonaa taayna wuxuu ku dhahayaa jaanis ma haysaa waxaan rabaa inaan kuu imaado baskaasoo qaadana waxaan kulmi karnaa galabta uuna waxay ku dhahaysaa walaalow taay ha imaanin meeshaan taay wuxuu ku dhahayaa haye beridan baa ku imaanaa uuna waxay ku dhahaysaa war beridan ba xataa ha ii imaanin taayna wuxuu ku dhahaa gormee guriga soo laabanaysaa uuna waxay ku dhahaysaa macquul ma aan gurigaas ma imaan kari inta iskaaga noolaana taay wuxuu ku dhahayaa beridan baa ku soo laaban rabaa siyool marka balameenii hore waa inaad dib u habeen ku samaynaa uuna waxay ku dhahaysaa taasaa samaynin aan joojino balamahan aan soconaynin aniga waqti qaali ayuu ii yahay mana rabi inuu beebeen iiga khasaaro waxaan rabaa inaad si fiican ugu faa'iidaysto wixii aan ku haminayay inaad sameeya ayaan helay waxaasna agteeda wax weyn ayay ka yihiin iskana jooj horada in gadaashan aa u socotid waqtin u sameey waqti aad naftaada la qaadatid janis c waa inaysan kaa khasaarin daqiiqada ka mid ah waqtigaada taayan waxuu ku dhahayaa warkan aad daldaloosid ma fahmin haddana sababa u faham meesha ma yaalo sidaa sheegtay ayaan samaynayaa kadib taleefanka ayuu ku daminayaa taayan waxuu bilaabayaa inuu iska ooyo oo iska qiiroodo una ayadana banaanka hoteelka ayuu soo baxaysaa badda iyadoo joogto waxay bilaabaysaa inay iska oyso oo ka xumaato wixii dhacay maalmo kadib waxaa la gaarayaa waqtigii aadi lahay taay tababarka militariga awoowiisan gaariga ku dhaweyn lahaa ma uu ka caayo maadaama barf badan da'ooyo awoowaha wuxuu ku dhahayaa gaarigan qabowga socod dartiisa ma shidmaayo taayan wuxuu dhahayaa taas dhib ma lahan baskaa iska raacaya ayeyadiis waxay ku dhahaysaa waa daahaysaa waxaa lagaa rabaa inta aadin meesha tababarka timaa inaa iska sii gaabisid taayan wuxuu ku dhahayaa waxaas o dhan waa samayn karaa haddii aan hadda aan baxo marka aniga keliya ayaa baxaayo yaa lay soo raacin markuu kasoo tago waxaa ka daba imaanaya walaalkiisa taaya wuxuu ku dhahayaa orod laabo dhulka sabiibax waaye ha kugu finne walaalkiis wuxuu ku dhahayaa iska bax laakiin naftaada ilaali iskana ilaali inaad dhaawacanto taayan wuxuu kasoo tagayaa walaalkiisa asagoo taagan kadib wuxuu imaanayaa busteejada baska kadib wax yar kadib baskuu sugaayay uu imaanayaa kadib waxaa kasoo wareegsanayso 10 sano markay kasoo wareegatay waxaa arkaynaa taayoo imaaday busteejada baska markuu yimaado tareenkuu sugaayay gudaha ayuu u galayaa waxaa ogaanaynaa taay inuu noqday ninkii dhammaay tareenka wadaayay oo darawalka ahaa meeshan ayuu ka shaqeeyaa kadib tareenka ayuu kicinayaa wuuna wadayaa wuxuuna keenayaa busteejada kale markuu shiftii shaqada ka dhammaado midkoo kale ayuu ku wareejinayaa tareenka kadib dharkii shaqada ayuu iska soo bedelayaa kadib asxaabtiisa wuxuu ugu imaanayaa maqaayadda markuu fadhiisto saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa cabitaanka mana lacabi taay wuxuu ku dhahayaa ma cabi kari beri subax shaqada tareenka ayaa ku qoranahay markuu xaafadda tago waxaa soo wacaya walaalkiisa wuxuuna ku dhahayaa aniga keliya ma ii diraysaa xafladda arooska maamulahaagii hore walaashiisa adi maa timaadi taay wuxuu ku dhahayaa adigu waa og tahay inaysan fasaxii ku soo aadaynin wiig endiga walaalkiisa wuxuu ku dhahayaa niyo adiga mar walba mashquulaa tahay maana soo booqatid taay wuxuu ku dhahayaa haddii wax ka halaa
guriga ii soo sheeg markaasaa imaanayaa si aan u hagaajiyo walaalkiis wuxuu ku dhahayaa saas haddee tahay waa inaa wax ka halaynaa guriga si aa u timaadid ayeeyii awoowe anigaa xanaaneeyo adigana waa iska maqan tahay adiga mar walba mashquulsan tahay markaan ku soo baco dib ma lahaan lahayn haddii aa ku mashquulsanaan lahayd adoo shukaansanaayo xabado marka waxaa lagaaga baahnaan lahaa waqtigan oo kale inaa qofto inaa wada socotaan si aa isku guursataan ma gudba aad u weynaa noqotay xabado aad isku guursatid oo ilma aa dhashid ka baran ugu yaraan saddexdoo cunug tahay warkaas makoo maqlo taleefanka ayuu ku daminayaa kadib taleefankiisa ayuu ka daaranayaa hees kadib wuxuu arkayaa fariin u soo dhacday in applicationkii hadda ka hor ay isla isticmaali jireen inay haddana ayada dhinaceeda laga dhegaysanayo heesta dhinaca kale waxaa arkeenaa uunoo meel iska fadhiso oo dhago ugu jiraan oo ayadan isticmaalaysa applicationka hees ayaa noogu shidnayd ayadana u oynaysay subaxdii ma kala gaaro tahay shaqadiisa ayuu tagay markuu taleefankiisa fiiriyo wuxuu arkayaa in weli la isticmaalooyo kadibna uu kansalayaa in lala isticmaalo taayna waxaa isdhahayaa waxay la isticmaalooyo uun le waaye dhinaca kale waxaa arkeenaa uunoo bas soo raacday waxayna kusoo laabatay siyool sidee u socotay ayadoo boorsadeeda wato waxay tegaysaa hotel yar ee ka shaqa bilaabi lahayd meeshan waxaa kusoo dhaweynayso maamulada meesha kadib waxay geenaysaa qolkay seexan lahayd qoftii waxaa ku dhahaysaa hore waxaa u maqlay inaa hotel maamul ka ahayd intuu ku yaalaa ugu yaraan waxaad tijaabisay mashruucaaga khaaska ah meelaha degta ma heshay uuna waxaa ku dhahaysaa si degdeg ayaan kusoo baxay welina ma helin ayadana waxaa ku dhahaysaa gurigeyga wuu qurux badan yahay qofta ila deganna waa qof fiican 2 isbuuca maqnaan rabaa oo madax degsi ah meeshaasna wuu dhow yahay markaasaa kugula talinaya inaad soo degtid taasna waxaa kuugu sheegay adiga qof fiicana u eg tahay kadib uuna baaskil ayay soo qaadanaysaa waxayna soo kala baranaysaa magaalada meesha lagu gado rootiga maqaayadda xaafadda magaalada ayada dhan meel walbo adariiskiisa ayay soo qoranaysaa dhinaca kale tahay isagane markuu shaqada ka soo laabto habeenkii gurigiis dhexdiisa ayuu ka samaystay warshad yar wuxuuna ku sameeyaa alwaaxda bareemada sawirada la gishto subaxdii marka la gaaro uun ubaxay soo gadanaysaa maamada waxay ku dhahaysaa maanta ubaxa watatahay maxaa dhacay uuna waxay ku dhahaysaa ubaxan waxa uu talagalay inaa ku dabaaldego maalinteedii koowaad ee shaqada ee ugu horeyso waana caado aniga gaar ah mar walba saanaya sameeyaa kadib uuna shaqadeeda ayay bilaabaysaa kadib tareenka ay soo raacaysaa tareenkii saarneed waxaa waday tahay wuxuuna keenayaa busteejyadii rabeen markuu albaabada tareenka u furo kadib waxaa kasoo degayso uun taayna waxaa lasoo ogeysiinayaa in tareenka daqiiqada kale uu sii istaagnaado taayna mikrofoonka ayuu ugu sheegayaa rakaabka in dib u dhac uu ku yimid waqtigii uu bixi lahaa tareenka uuna dhaqaaqi doono daqiiqada kadib uuna ayadoo sii socoto waxay maqlaysaa codkiisa taay isagana wuxuu ka arkayaa kaamira tareenku dhegan waana markiisii ugu horeysay uu arko 10 sano kadib ayada markii codkiisa ay maqashay ayaa miir ugu dambeeyey kadib dhinaciisa ayuu soo dhaqaaqaysaa dhagii ay wadatay xataa dhulka ayuu ugu soo dhacayaa wayna soo ordaysaa taayna markuu arko inay soo ordayso albaabada tareenka ayuu xirayaa uuna ayadana axbaar ay kasoo daba ordaysaa kadib tareenka ayuu dhaqaajinayaa uuna sidaas ayay ku gaari weysay taayna markuu geeyo tareenka busteejyada kale oo shiftigiisa shaqada usoo dhammaado tareenka ayuu kasoo degayaa kadibna soo ordaya siduu usoo ordaayo wuxuu imaanayaa qaybta kale stationka si uu usoo raaca tareenka soo aadayo busteejyada uuna ugu soo tegay uuna ayadana meeshii taagneed midkooda soo wacay wuxuuna ku dhahayaa kii siyoon ayaa isoo wacay waxaana dareema hadduu ogaado meesha aad joogtid inay dhibaato dhici karto waxaana u sheeg markaa busteejyada iisuu markaad soo gaartid inaa isoo wicaysid oo aa meeshaas ku kulmi doono ayadoo la hadlayso ayuu imaanayaa siyoon busteejyada siyoon markuu arko oo u yimaado wuxuu ku dhahayaa inta maxaa ka samaynaysaa soo bax aan ku laabanay meesheenii hore uuna waxuu ku dhahaysaa meeshaas uma socdi waan kuu sheegay inaa u baahanahay na siino inaa qaato siyoon wuxuu ku dhahaya hal mar aa lagu waayey kadib waxaa i dhahday hal mar inaa xiraysid hoteelka taay markuu busteejyada soo gaar wuxuu arkayaa uuna siyoon gacanta ka hayo oo celinaayo taayna tareenka ayuu kusoo degaya kadib dhinac kale ayuu kusoo wareegsanaya isagoo jaranjarada kasoo degaayo ayay ka hor imaanaysaa uun oo cararayso sidee usoo socoto hal mar ayay is arkayaan ayagoo isfiirina waxaa gadaal kasoo hadlayo siyoon uuna hore ayay usii soconaysaa agtiisa ayay maraysaa siyoon asoo ordaayo ayuu soo fuulayaa jaranjarada kadib waxaa isku hordhigay tahay sidoo cabaar ugu dabareebo uuna ilaa banaankay ka gaarto way cararaysay kadib ay istaagaysaa haddana dib ay usoo laabanaysaa kadib waxay arkaysaa siyoon oo ilaa hadda aa bixin oo banaanka busteejyada taagan kadib uu soo wacaya ayadana banaanka ayuu soo baxaysaa waxayna istusisaa siyoon markuu arko kadib ay wada hadlaayaan wuxuuna ku dhahay anaga waxaan ahay saaxiibo 10 sano waxaase u rabtaa inaa bareega u qaadid ama na siino xataa labadayna weligeena si fiican xataa iskuma shukaansanin uuna wuxuu ku dhahaysaa sidaas waxa u sameeyey si aadan ii soo ficin oo ii soo sheegin waraa aan rabin oo xun siyoon wuxuu ku dhahayaa anaga waxaan ahay dad shuraak ku ah shaqada marka dhibka waa inaa wada qaybsanaa anaga labada qof oo saaxiibaan ahani sidaa maa ku faraxsan tahay haddii ganacsiga guulaysto cadow ay yeelane waxaan na qiyaamin dad horumarkeena ka xun haddaa kiiskan ku guulaysano qalad ma aha uuna wuxuu ku dhahaysaa guushiis maxaa ka faa'iideynaa siyoon wuxuu ku dhahayaa aniga dadkaas ma ogolaanaya inay meeshaas ay maamulaan mana uga tagaayay haddii uu kiiskan sii socdo way guuldaraysan doonaan kiiskan iloo ka dhammaanayo kama heri dooni waana daba socon doonaa ilaa dhammaadkiisa uuna wuxuu ku dhahaysaa inaa wax ka ogaado meeshaas marabi xataa wax yar inaa ka maqli marabi xataa siyoon wuxuu ku dhahayaa meel dheeraa kaga timid siyool maxaa ku doorta meeshaan sidai ahaataba waan kusoo booqan doonaa mar walbo uuna wuxuu ku dhahaysaa sidaa ha samaynin aniga ma jeceli sii socodii soo noqod iyo balanbalan iyo wixii la mid ah inta shaqo iska fudud ayaan ka helay waana shaqo aad u wanaagsan nafteeda ayaan ku mashquuliyaa nafsina ku dareemooya ee kheyr aan ku rajaynaa wayna ka tegaysaa maalmo kadib waxaa arkaynaa taay oo guriga joogo oo mashiin guriga ku yaal alwaaxyo ku farsameynaya kadib waxaa soo wacay maamulihiisii hore iskuulka waxaana ku dhahay lacagtaas oo dhan maxay ugu soo dirtay arooska dartiisa gifti ahaan taayna wuxuu ku dhahay kastaas ma badno waxay ahayd inaa imaado xafladda arooska maamulaha wuxuu ku dhahay qasab ma ahin inaad timaado walaalkaaga si fiican noo caabiyey ardaydii hore noo imaadeen meesha si fiicana loo buuxay taayna wuxuu ku dhahay asxaabteedii hore iskuulka ma yimaadeen sida uun camal ku soo bicin miya maamulaha wuxuu ku dhahay qoftaas ilma soo xiriirin laakiin waxaa maqlay in dacwad cabasho ah lagu soo gudbiyey magacuun waraaqadan waxay u gudbisay dowladda si gurigeeda loo dumiyo xaaskayga ii sheegtay ayadaa ka shaqayso xafiiska dowladda ee tuulada marka hal warqad guri lama gumdumin karo waraaqada badan ay u baahan yihiin dowladda halkaas warqadii la soo gudbiyey waxaa ku qornayd kaliya magaca
magaca uun kadib taay waxa imaanaya xafiiska tuulada waxaana loo keenayaa warqadii ay soo qortay uun gabadhan waxa ku dhahaysaa warqadan wax qiimaha ma lahan guri oo qof ku nool oo cidla ah in la dumiyo dhibkiisa badan meesha kaliya waxa ku qoran magaca uun oo kaliya mana ku qorna cibaan laga xiriiro ama taleefan laga waco warqadan oo ku wareernay meel ay u socoto markuu kasoo tago xafiiska asagoo socdo wuxuu arkaya walaalkiisa iyo asxaabtiisa oo isla soo socdaan walaalkiisna wuxuu baraya asxaabtiisa ee iskala shaqeeyaan xafiiska boostada taana habeenkii marka la gaaro asagoo baaskiil wato wuxuu imaanayaa guriga uun wuxuuna arkayaa in guriga sidii uu ka ogaa inuu iska bedelay uuna noqday meel lama degaan ah oo caara badan kadib taay wuxuu tagayaa dukaanka ee sawirada ay sabirtay khudaarta ee dhigi jirtay taayna darishada ay ku fiirinaya sawirada tufaaxa iyo yaanyada kadib waxaa dukaanka soo baxayso uun ayeeyadeeda wuxuuna ku dhahayaa uun inta imaan jirta ma aho sawiradaas tufaaxan ayadaa sabirtay ayeeyada waxay ku dhahaysaa haa iyadaa sabirtay laakiin ayada inta mar hore ugu dambeysay taay kadib wuxuu soo qabanaya warqadaha mid ka mid ah wuxuuna uu qorayaa magaciisa iyo nambarkiisa wuxuu ku dhahayaa hadaa aragtisii warqadan maraa sikadiis ah ugu arkay siyool ayeeyadana gudaha ayay gelaysaa waxayna usoo bixinaysaa waraaqado ee usoo diri jirtay uun sanadihii lasoo dhaafay markii la gaaro ayeeyada dhalashadeeda kadib taay ayay u dhiibaysaa waxayna ku dhahaysaa warqadan waa tii sanadkii lasoo dhaafay ee ii soo dirtay taayna warqada ayuu fiirina wuxuuna ku dhahayaa markaan xaalkeeda oo fiicnaa maalin kadib waxaa arkaynaa gabar rabta in loo sameeyo fareemyada sabiryada la geliyo ayuu ayada tusayay alwaax laga sameeyo noocyadooda gabadha waxay doorane mid ka mid ah kadib waxay weydiinaysaa shaqadiisa joogtada ah taay wuxuu ku dhahayaa aniga darawal tareenaa ahay tareenkaa wadaa ayadana waxay ku dhahaysaa maanta shaqa ma liid miya taay wuxuu ku dhahayaa beri ayaan shaqaynayaa shaqadeeda habeenkii ayaan galaa haddana midkaa rabto waa doorata ee magaca adiga ayada waxay ku dhahaysaa aniga waxaa lay dhahaa iim taay wuxuu ku dhahayaa maalmo kadib diyaar waay fareemkaada su'aal yar aan ku weydiiyey sidee ku ogaatay inaa bahashan aan sameeyo fareemyadan sawirada la gashto dad kale uma sameeyo keliya asxaabteeda khaaska ah lee u sameeyaa iimna waxay ku dhahaysaa waxaan ku arkay mid aad samaysay maqaayadda isagoo ku dheggan oona isoo jiitay waana mid dabiici ah wuxuuna u ekaa mid carwooyinka lagu soo bandhigo kadibna waxaa soo baaray social mediahaaga oo gadaal ugu qornaa mid kalena waa kuu dhiibanaa inaa iisoo samaysid waqtin makuu qabanayay waqtigaa rabtid iisoo sameey taayna waxaa ku dhahayaa kaas seeskiisa ii sheeg kadibna iim gacmeeda ayay uu tilmaamaysaa halahoo yahay fareemka kadib waxay ku dhahe saan xal ma ahe waxyar isug aa soo qaaday kadibna way kacaysaa waxyar kadibna waxay soo laabanaysaa fareemkii weynaa ayadoo wado waxayna ku dhahe waa kan midka kuu sheegayay mar horaa soo gatay kadib meel ayuu kusoo dhacay kadib derbiga ayay ku tiirinaysaa taayna waxaa ku dhahayaa bahashan oo kale hore uma sameynin wayna weyn tahay bahasha kumitarin lahan hore uma soo qaadanin meeqa camal waa isaaskeeda iim ayadna waxay bilaabay inay gacanteeda ay ku cabirto taayna waxaa ku dhahayaa iska dhaaf markaa xaafadda aa ku celisid soo cabir markaa cabirtidna ii soo dir kadib hal sabir ayuu ka qaadanayaa kadib sabirka ayay soo qaadaysaa ayada keligeeda taay isagana la socday wuxuu ku dhahaa hadda inaa ku caawi ma rabtid miya oo kula qaado bahashan iimna waxay ku dhahaysaa bahasha anaa ku filan qaadideeda marka iska dhaaf dhinaca kale una ayadana taay ay ku sugaysay busteejyada baska markay weyso xaafadeeda ayay imaanaysaa waxayna dhahaysaa sidaan ugu fikiraya inaa ku soo baco maalin kale ii dhiibaysay samarkaa imaanaya hadda winterka iisii dhiibayay kadib anigana waa caajisay inaa ku soo baco siday u socotayna sanado badan ayay ku qaadatay kadib ayada tuulada ayaa u soo dirayso warqada sabirkeeda taay uu nambarkiisa ku qoray waxayna u sheegay in taay uu saa'id ugu walsan yahay markay aragto nambarkiisa way soo wacaysaa taay isagana xaafada ayuu usii socday kadib teleefankiisa markuu kala furo wuxuu ku arkayaa wicitaano fara badan kadib wuxuu ku celinayaa nambarka kadib waxaa ka qabanaysa uun waxayna ku dhahaysaa aniga waaye maxaa iiga welwelaysaa aniga waxaa ii sheegtay ayada tuulada banaanka maa joogtaa taay wuxuu ku dhahayaa haa banaankaa joogaa marka makuu kusoo celin karaa koolka waxyar kadib taay gurigiisa ayuu imaanayaa uun waxay sugaysay inuu soo waco markuu soo waco way ka qabanaysaa waxay ku dhahaysaa meesha tareenka ka shaqaysaa waana wadaa tareenka ma aho ayada tuulada ii sheegtay inaad tareenada ka shaqeeyo siyool inaa wadid busteejyada iisuu ma aadaa waxaa maqlay busteejooyin kale inay shaqadeeda ka duwan tahay hadda taay tareenadaa wadaa miya haddaa booskaada ugu fiicnaa heshay waxaana kuu soo wacay inaa iga welwelin taay waxaa ku dhahayaa adig kii ku daba socday muxuu kaa rabay uun waxaa ku dhahaysaa wuxuu rabay inuu ilaaligeliyo wax yaroo khilaafaad ah anaa ka dhex dhacay waxaasna waa sheeko dheer taay waxaa ku dhahayaa waa saaxiibkaada hoteelka soo ma aha marka aniga waa inaad si nadiifa igula hadashaa warwareegan iga jooji waxa lay jire uun waxaa ku dhahaysaa lama baan waxaas in lagu welwelo marka welwelkan badan aa qabta jooji taay waxaa ku dhahayaa saas haddee tahay hadda waqti dambe waa ee macsalaamo teleefanka waa diminaa kadib teleefanka ayuu ku jaraya ayadoo war soo wado subaxdii marka la gaaro uun waxaa soo bacay maamulaheeda waxnu ku dhahayaa adiga habeenkii socdii war lay ku jirtaa macaamiisha hoteelka way ka soo dacwoodeen guri aad degta raadso meesha meel shaqo waaye sharciyada waa inaa ilaalisaa uun waxaa ku dhahaysaa maanta guriyaa helay meeshasa u guuri rabaa kadib boorsadeeda ayay soo qaadanaysaa waxayna imaanaysaa guriga gabadha guriga leh iyo saaxiibkeeda safaray u socdeen waxayna rabta intay maqan yihiin inay sii joogto gabadhan banaankii ku sugaysay uun waxaa ku dhahaysaa qofii maa kaa soo dahay leh kadib gabadha waxay wacaysaa saaxiibkeeda waxayna u sheegay inay uuna imaaday kaamirada iyo bateriyaasheeda horena ugu soo qaad kadib saaxiibkeeda soo baxaya wuxuuna ku dhahaa wax walbaa noo soo qaaday soo bax kadib ayada waxay ku dhahay dhirtaan aan ugu adkayn jirtay inaad sabar dhaadheer aan galno haddana siibaa leenahay waxaan helnay qof noo daryeelo dhirtaan waana u safri karnaa meelo dhaadheer uun waxay ku dhahaysaa taas waxweyn ha ka dhigina labadiina waa idin mahad celinaya meel fiicana igi soo baxdeen kadib ayada waxay ku dhahaysaa guriga si fiican nooga taxadar ayadii saaxiibkeeda kadib ay israacayaan markay baxaan uun guriga ayay boorsada soo gashanaysaa kadib waxay imaanaysaa busteejyada uu ka shaqaytaay markay aragto inuu weli shiftigii shaqada usoo dhammaanin waxay iska sii istaagaysaa dariishada hoyga laga arkaayo meeshay kusii sugaysaa taay asagana tareenka ayuu keenaya busteejyada uun ay joogtay markuu kasoo dego wuxuu arkayaa uunoo dariishada taagan asagana cabaar ayuu fiirinayaa markuu tareenka dhaqaaqo ayuu sii jeesanayaa uun kadibna soo fiirinaysaa asagoo sii jeedo taayna uu dareemay inay soo fiirinayso kadib uun way sii jeesanaysaa taayna asagoo
isboojeenaayo oo wejiga qarsanaayo ayuu agteeda socod boosiis ku maraya uuna feerinaya asagoo sii socdo waxayna arkay inuu weli u wato taay boorsadii iskuulka kadib meesha ay iska fadhiisanaysaa ayadoo ooynayso cabaar ay ku ooynaysaa sida meesha cabaar u fadhisay markay daasho way kasoo tegaysaa marka jaranjarada kasoo degto waxay arkaysaa taay inuu bixin uu banaanku taagnaa agteeda ayuu imaanayaa wuxuuna ku dhahaa waxaa kasoo wareegtay waqti dheer halkaas ayuu naga eg tahay qaybta saddexaad ha ilaawina muuqaalka like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhig channelka gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin qaybaha xiga